waxaan arkayaa dhalinyaro fara badan oo hortayda ka muuqata wiilal iyo gabdhaba leh oo aan rajaynayo intooda badan inay noqdaan madaxda mustaqbalka waddankan ama Soomaaliya oo dhanba iyo qaarkiin inay adduunka ka noqotaan madax sare sababtoo ah waa ogtiin maanta dalal badan oo adduunka baa reer Soomaaliyeed madax ka yihiin maxkamadda adduunka u sarreysa ninka madaxda ka ah waa nin Soomaaliya oo waliba reer Puntland wasiirka immigrationka iyo baasaboorada iyo oo Canada waa nin Soomaaliya waliba reer Puntland aqalka sare oo looga taliyo Mareykanka waxa ku biirtay gabar reer Soomaaliya oo reer Puntland marka adduunka inay madax ka noqotaan iyo meelo badan baa suurtagal ah aan idin rajaynayaa laakiin waxa wax walba ku xiran yihiin qofku sidoo wax u barto dadaal baa loo baahan yahay inaad tartamtaan baa loo baahan yahay in qofku uu ka fikiro sidoo number 1 u gelina galaaskiisa baa loo baahan yahay waxa loo baahan yahay inuu qof walba yiraahdo waa inaan ahaadaa qofka ugu fiican galaaska si fiican wax loo barto qofku uu yiraahdo mustaqbalkayga waxaan ku dhisi karayaa waa waxbarashada waxaan idin ballan qaadayaa haddii aan madaxweyne dalkan ka noqdo inaad shaqo heshaan dhalinyarada soo baxda iskuulada iyo jaamacadaha inay baagamuundo noqon ay shaqo helaan qofkii soo baxaba uu shaqo helo marka saas darteed nin walba ku dadaalo inuu waxbarashada number 1 ka noqdo sidoo naftiisana u anfaco shaqana ugu helo dalkana ugu shaqeeyo waayo ninkaas ay anfacaya oo waddanka anfacaya